asalaamu calaykum kulanti wanaagsan khiyaaray mudanayaal iyo marwooyin ummadda Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan waa mar kale iyo ha noolaato waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa dhambaalkii aan idin ballan qaadnay qaybtiisii koobaad ee ka hadlayay duleynta Soomaalida iyo digniinta shisheeyaha waa dhambaal uu qoray oo ka mid ah qoraallo mahadha ah oo uu daabacay Dr. Maxamed Daahir Afrax oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee sida weyn uga warwarsan mustaqbalka qowmiyadda iyo qaranka Soomaaliyeed. daraasadan ayaa Dr. Afrax waxa uu ku daabacay website-yada Soomaalida sanadkii 2011 maraan wax ka weydiiyay sababta muddada intaa leeg uusan buug uga dhigin daraasadan ayaa waxa uu igu jawaabay waxaan baxnaaninayay oo aan alle ka baryayay in saadaashaasi ay beenowdo hase yeeshee nasiib darro 6 sano ee u dambeeyay waxaa iska daba imaanayay dhacdooyin muujinaya ama ka marag furaya in uu dhab yahay shirqoolka isaga ah ee Soomaalida loo maleegayo. tusaale ahaan dhacdooyinka uu soo qaatay Dr. Afrax waxaa ka mid ah soo galitaanka ciidamada Kenya iyo Ethiopia ee gudaha Soomaaliya iyo ogolaashada loo siiyay inay ka mid noqdaan AMISOM, sheegashada Kenya ee badda Soomaaliya, qorshaha hawada Soomaaliya ee looga dhaxal wareejinayo Soomaalida, kala qaybinta Soomaaliya ee loo qaybinayo dowlad goboleedyo qabiil ku dhisan, faragelinta bareerka ah ee arrimaha gudaha Soomaaliya sida doorashooyinka iyo wixii la mid ah. sidaa darteed Dr. Maxamed Daahir Afrax waxa uu ha noolaato u fasaxay faafinta daraasadan isagoo u rajeeyay dadweynaha Soomaaliyeed inay ka digtoonaan doonaan dabinada qarsoon iyo kuwa muuqda ee uu cadowgu u maleegayo ummadda Soomaalida. ha noolaato waa madal dadweyne oo looga hadlo isbeddelka nolosha bulshada Soomaalida, saamaynta go'aanada siyaasadda, xuquuqul insaanka iyo arrimaha bini'aadanimada. ka qaybgal oo ra'yigaaga ku biiri ha noolaato. ku soo dhawaada qaybtii koobaad ee qormada ciwaankeedu yahay duleynta Soomaalida iyo digniinta shisheeyaha, goorma ayay Soomaalidu ku baraarugi doontaa. waa daraasad 6 sano ka hor uu qoray Dr. Maxamed Daahir Afrax waxaana halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Ayaanla Xuseen Cabdi. Dr. Maxamed Daahir Afrax waxa uu qormadiisa ku iba furay tix gabay ah uu ka soo dheegtay maanse uu tiriyay abwaan Soomaaliyeed kaasi oo lagu daabacay mareegta Somali Talk 22 bishii 12 sanadkii 2008. waana gabay u muuqda in Soomaalidu ay u gardhiganayso adduunyada uguna gardhiganayso duulaanka ay ku hayaan dalkooda inuu yahay mid bareer ah oo ay ku doonayaan inay ku dhaxal wareejiyaan dalkooda. waxaana uu yiri: dowladaha adduunka maxaad nagu dilaysaan, ma diinteen islaamka waxaad nagu dilaysaan, barwaaqada dalkeen taal miyaad nagu dilaysaan, ma deegaankeenna istiraatiijiga ayaad nagu dilaysaan, ma dadkeenna firfircoon ayaad nagu dilaysaan. tixdaasi maansada kadib Dr. Maxamed Daahir Afrax waxa uu soo xiganayaa qoraal uu qoray qabiil u dhashay waddanka Kenya kaasi oo la yiraahdo Donald Kipkorir. qoraalkaasina waxa lagu faafiyay wargeys qarameedka ugu weyn waddanka Kenya ee Daily Nation cadadkii soo baxay 4 bishii 10 2008. waxaana uu qabiilku u qoray hadalkiisa sidan: Kenya iyo Ethiopia waa inay jarjaraan Soomaaliya kadibna labadooda midba jeex qaataa. mid walba waxay qayb u heli doontaa 300,000 square kilometer oo ay dhulkeeda ku ballaarsato iyo ilaa 5 milyan oo qof oo raaciyo cusub u noqda. marka labadan ciidan qabsadaan dhulka Soomaaliya ee aanu ku dhawaaqno inuu ka mid yahay dhulkayaga, xulafadeena reer galbeedka way nagu taageeri doonaan iyagoo u arki doona arrin iska dhamaatay. Jabuutina sooma faragelin karto qorshaha lagu gunaanadayo aayaha Soomaalida. Dr. Maxamed Daahir Afrax oo qoraalkan qoray sanadkii 2011 waxa uu xilligaasi yiri: 3 sano ayaa laga joogaa markii la faafiyay hindisaha kor ku qoran, maantana waxa ay xusuusinaya waxyaabaha iminka dhacaya. mowduuca qoraalku ku salaysan yahay u fiirsi dhacdooyinka maalmahan socda ee u muuqda ku tallaabsi qorshihii ay 2008 diidaha ka rogtay wargeyska Daily Nation. waxa igu baraarujiyay ayuu yiri Dr. Afrax iftiimin ay isla maalmahan qorshahaasi iyo arrimaha socda ka qoreen in dheergarad ajnabi ah kuwaasi oo hadalkaygu u badnaan doono xigasho iyo iftiiminta wixii ay qoreen oo aan jecelahay inaan la socodsiiyo Soomaalida aan akhrin afka Ingiriiska ama aan ku baraarugsanayn waxa agtooda ka dhacaya ee khuseeya aayahooda dambe iyo aayaha ubadkooda. Dr. Maxamed Daahir Afrax waxa uu leeyahay balaan iftiimiyo qaar ka mid ah qodobadii hindisaha u ahaa Daily Nation
hindisahaasi uu ku saxiixnaa qareen Kenyan oo lagu magacaabo Donald Kipkorir kaasi oo cinwaan looga dhigay Kenya iyo Ethiopia waa inay kala jarjaraan Soomaaliya oo midba qayb ay qaadataa. waa hadal cad oo la wada fahmi kara ayuu yiri Dr. Afrax. faahfaahinta lagu sababeeyayna waxa ka mid ahaa weerahan soo socda. Soomaaliya ma ahan dawlad maanta jirta oo leh xuduud ay ilaashato, kaliya waa magac isaga dhex qoran qariirada dunida. waxa kale oo ka mid ahaa qoraalka lagu qoray wargeyska Daily Nation. Kenya iyo Ethiopia maanta ilbiriqsiyo way uga fududahay in saacadii ay doonaan ay madaxda Soomaalida ka saxiixdaan wixii ay doonaan kana ansaxsadaan. waqti kasta madaxda iyo xeerdejinta Soomaalidu waxay dhooban yihiin magaalada Nairobi. waqtigii aan doonno ayaan isugu yeeri karnaa hotel ku yaala Nairobi. halkaas ayaan uga saxiixan karnaa sharciga aan dalkooda ku kala qaybsanayno ayuu yiri innaga iyo Ethiopia. qarashka nooga baxa howlgalka aan ku qabsanayno dhulka Soomaalida waxa bixin doona Soomaaliya. waxay la mid noqon doontaa sida berigii xulafadii qabsatay wadanka Jarmalka ee qarashkii dib ugu dalaacday Jarmalka. Soomaaliya waa dhul hodan ah oo ay ka buuxaan batrool, gaas dabiici ah, uranium iyo macaadin kale oo aad u fara badan, iyo weliba kheyraadka badda oo aan xisaab lahayn. isla markaa aan la wareegnaba waxaan ku marti qaadi doonaa saaxiibadeena istiraatiijiga ah inay noo soo saaraan kheyraadkaas oo aan ka wada faa'iidaysano. Maraykanka iyo Ruushku way ku farxi doonaan, wayna noo abaal gudi doonaan haddaan Soomaaliya qabsano oo aan dalka iyaga ku darsano. intaasi aan ku hakiyo qaybtii koobaad ee dhambaalkii uu qoray Dr. Maxamed Daahir Afrax ee uu ciwaankiisu ahaa duleynta Soomaalida iyo digniinta shisheeyaha, goorma ayay Soomaalidu ku baraarugi doontaa. waxay noo ballana qaybta labaad hadduu alla idmo. intaynu kulmi doonno waayaan la Xuseen Cabdi oo idinku dhaafaya ha noolaato. Islam so